والسلام على رسول اصطفى ثم ما بعد كلمة كوبان إن شاء الله تعالى وحين كنت المامنا سلامة الصدر سلامة الصدر waxaan u dooranay xilligan maanta lagu jiro dadkii way iska wada laalaadaan qof waliba qof buu ka laalaadaa waliba waxa ugu daran dadka qaraabada ah ee isxiga oo qofku walaalkii uu oranayo 10 sano ma wada hadlin qaar kamid ah aabahood baan la hadlin qaar kamid ah hooyadood la soo hadlin qaar kamid ah ay qaraabadoodii adeerkoodii abtigoodii habareerkood nacib yihiin limaada waxa weeyaan dhammaan wax isku wada haystaan waa arin adduunyo arin diineed kuma culuubin maadaama aynka tahay waxaan jecelahay inuu kelmad kooban ka niraahno salaamad sadr laabta inaynu furno oo dadkan maxaabiista ah inoo xidhan aynu sii deyno hadaynu doonayno inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka badbaadno ilaahay baa quraanka wuxuu ku waa calaamatul ahlu janna calaamaadkiisa waxa kamid ah salaamad sadriga ونزعنا ما في صدورهم من غل jannada ma gelaysid ama lama gelayaba ila laabta waxa ku jira oo dhan laga safeeyo waana ogtiin xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ninka ahlu jannaha ay soo maray saxaabada ee rasuulku ku yiri ahlu jannaha inuu soo galay saddex jeer buu noqday nin qura ninkii markii la daba galay muxuu ku gaaray darajada jannada wuxuu ku gaaray habeenkii ma seexdo hadii qof qurahay qalbigayga wuxuu ku jiraa dabeetana waa kii saxaabigu lahaa la joogay ee saddex habeen la seexday wahada ma nutiq shayga aanan awoodi karayninba waa ka ilaa xilliga aan way jirtay in qalbiga wax lagu hayo لكن maxaynu u baahannahay qalbiga inuu furno siidayno salaamo sadriga qisatu abu dar waa ogeydeen barkii bilaal uu ku yiri waxa tahay inuu hooyo madow nabiga kaleey salaatu wasalaam sidoo canaantay wad ogeyd ayarta umma dabeeta markii dambe wuxuu yiri intuu jiifsaday wuxuu ku yiri iga gooso waxa doontana igu samee wax weeyaan si aad markaa raali u noqoto wuxuu doonayay markaa inuu sii daayo qalbiga uu ka sii daayo bilaal waa kiiska saamaxay inuu madaxa kaga joogsado baan u ogolaaday nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiiskiisa saxiixa waa garanaysaan ahlu jannaha waxa ugu badan rajul makhmuum saduuq lisan marka saduuq lisanka way garteen qofka run sheega badan lawaanu garanay makhmuumku waa maxay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu ku yiri waa qof kasta oo markaa qalbigiisa uu yahay raqiiq oo qalbi jilicsan oo dadka uu naxariis badan oo furfura oo qalbigiisa waxba ku jirin yaaniga dadka saamixitaan badan oo cafi badan dhamaanna waxyaabaha qalbigan baabi'iyay ama madoobiyay ama dilay waxa kamid ah amraada loo yaqaan amraadul qalbiga أمراض القلب waxa kamida xasadka waxa kamida xiqdiga waxa kamida marka dhanniga iyo waxyaabaha qofku shakiga uu ku sameeyo dhamaana waxa ina dilay maanta dadkeeni inagu wada diray mid wala mid buu kala laabaa wallahi salaanta kama qaada hebel wallahi marka halkaas soo maro ima eego wallahi wajigiisu ima furna waa wada shaki weey talabada waxa weeyaan xasad bal xasad la yiraahdo oo marka aad moodo in lagu dadkii lagu saliday waxyaabaha marka qalbiga ciriiriga ugu wacan buu kamid yahay waxa kamid ah xasadka waxyaabaha ugu badan ee maanta uu haysto waxa kamid ah inuu haysta inuu yiraahdo qofka isaga ma aragta ha wallahi waan nabcay hada gudiso tala maxaad ku nacabtay wuxuu ku oranayaa waan iska nabcay ka hadaad sii wadiso wuxuu ku oranayaa wallahi jinkayga nacab waxaynu maraynaa xilli qofkii aan wax idin dhex mariba ma jiraan horta kiya wax idin dhex mareen halkan noo dhig mid aan waxba idin dhex marin waxaad leedahay jinkayga nacab oo adiga ma jinka horta ku maamula mise adiga islaamnimada iyo shariicada ku maamusha maxaa kugu saleeday jinkayga nacabiyo waxaan waa xasad un weey xiqdi iyo xasad baa halkan ka buuxa waxaynu u baahannahay in aynu qalbiga furno oo muslimiinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala cafino waxa kamid ah maxaabiis baa ku xareysan habeen walba oo aad midaad qaniinsan tahay midaad xasad ku haysato midaad xiqdi ku haysato midaad maalin isku yar dhacdeen weligaana sii deymaysid maxaabiista hada sii deyn wadaadna maxbuus bad ilaahay agtiisa ku noqonaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam camalka waa la rafciyay saddex maalmoodba khamiis waliya siniin walba waa la rafciyaa samada loo rafciyaa laakiin waxaan la rafcinin waa maxay laba ma la rafcinin mushrik iyo marka mushaahin qof marka de shirki la yimi camalkiisa de lama qaadayo lama aqbalayo ka kale waa mushaahin waa mid dadka caloosha ugu hayo qalbiga saa uga laalaada arrinkaasina waxa weeyaan de adigu ma maxluusa adigu waxa islee dad baad haysataa oo hebel سامح بقى لقول ورسامحناكم بقى لذلك هلا سامحوا والله كي واحد نقول سميه سامح من نقول إنه ضيع لقاه يا وحلي ور هلا إذا سامحوا والله كوي سنة كده ويتو رمضان عرفتي لو تعرق أنا قام هذا إن رمية بوها أنت سنبه هي ممكن تعرق سنبه هي إن أنا سامحيني بل كاري بابا لقام هذا كم حال لقام هذا كاسنين ويسك سامحوية كارق لقام هذا قوليس إنه يسك سامحوية مروا إن شاء الله الدين توصل علين طونان وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم إلهي سبحانه وتعالى وبكر قصديسii waa ogtihiin Mistax ibn Thawaal markii uu wali inantiisii caayay Ilaahay baa subhanahu wa ta'ala ku yiri saamax maxaad u saamaxaysaa
dee alaa tuxibuuna yakfir allahu lakum adigu maanad jeclayn lagu saamaxo adigu habeen walba waxaad leedahay ilaahu dambi dhaaf maalin walbana waxaad ka laalaadaa 10 qof baad hareeraha haysataa leedahay kaa sii dayn maayo ilaa aad adigu wax saamaxdo adigana lagu saamixi maayo waayo waxaan lagu saamaxaynin dee qalbigaagii baaba markaa cid kale ka laalaado xiqdigii xasadkii iyo wixii mushaaxinkii ila yiri camalka lama rafciyo adigaaba ahba ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu leeyahay walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin waa kuwa markaa caadhada celiya isku celiya waa kuwa dadka cafiya waa kuwa markaa dadka iska cafiya wey marka inaad dadka cafidaa adigay dantaada tahay waxaynu walaal doonaynaa inaynu kelmadan iyada uga faa'iidaysano qaraabada dadkii way dadka isugu nacabi maanta waddankeena waxa weeyaan ama muslimiinta intooda badan waa dadkii isxigay qaraabada ah waxaad arkaysaa qof habaryartii iyo haddaad maanta weydiisood ku tahay goorma kugu dambeysay inaad la hadasho ama u tagto wuxuu ku wallahi niyow ciidii carafa ay ugu dambeysay walimaada waxaa laga yaabaa inuu aad col la tahay maxaad kula coltay haddaad weydiiso wuxuu ku odhanayaa oday adeeraa beri ii sheekeeyo wuxuu igu yidhi kaasi kaa adeerka ku abaaragtaa beri buu aabbaha cay aabbaha beri hore dhintay adiga kuuma sheegin beri buu aabbaha hal ka qaadayoo reerkaasi wayna nabcayeen weligeynba war hashiina beri hore dhimatay aabbahaana beri hore dhintay adiga waxaan adeerkaa kaa laalaadiyey waa maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka doonaya in cimriga loo dheereeyo risiqana loo ballaadhiyaa riximkiisa ha xidhiidhiyo war maanta haddii lagu yidhaahdo 10 sana lagugu daraya cimrigaaga laakiin adeerka orod soo salaan maxaad yeelaysaa wallahi madax iyo mijaadka soo dhunkanaysa laakiin waa maxay arrinta ina haysataa waxa weeye war baynaanu hayninba walla risiqaa ku ballaadhanaya cimrigaa lagu dheeraynaya qaraabada aad xidhiidhiso maadaama risiqii lagugu ballaadhanayo cimriga lagugu dheeraynayo xidhiidhi adiga xudoonaa kugu sameeyo weliga colaa kula ahaado adiga maxaa kaa galay u tag salaan guriga soo fadhiiso qisadan ugu dambaysiinaya waxa weeye aan runtii jeclahay inaan kusoo ururiyaa qaar ka mida baa wuxuu tilmaameen in ay dhowr iyo 20 sannadood risqa lagu adkeeyey wuxuu yidhi waxaan baac mushtar baan ahayo wuxuu yidhi haddaan alaabo qaado way gubataa maalintii dambe baan waxaan ogaaday sheekh baan ka dhageystay buu yidhi qaraabada in la xidhiidhiyo dabeetna waxaan ogaaday buu yidhi gabadha aan qabo oo aanu ilmaadeen ruma nahay inaan u diiday reerkooda oo dhan aan weligood uma tegi karti iyana kuma iman karaan waxaan ogaaday buu yidhi anigu jeel samaystay gurigayga ka mid ah maalin dambe aan u imi waxaan ku idhi adigu waxaad u tegaysaa reerkiinnii wiiga soo socda khamiista soo socdana waxaynu casumaynaa walaalaha iyo baynu casumaynaa iyo reerkiinnii gabadhii farxad aawada way oyday buuri maalin dhanbe ooysay waan aamusin kari waay buuri markii dambe aniga naxooso adaa wuxuu geystay maxaa dhacay baan ku ruxaytay weligay ismaan lahayn kelmaddaasuu kuga odhanaya ninkaan waanu casunnay markay is arkeen 20 sano dhow baan is arag markay ay is arkeen way isku ooyeen buuri iyadiina wuxuu wiigii dambe aanu israacnay guryahoodii baan soo tusay carruurteedii iyadii buu reerkii u tagtay waan soo noqday buuri muddo 3 sannadood gudahooda ayaan taajir noqday buuri wax alla waxaan qaadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala barakeeyay buuri limaada show aniga aban war isu haynay jeel arlada korkeeda ah oo aan ummadiiba kale riximkii kale ilaaliyay aniga lafteeda riximka bay ahaayeen oo ilmaadeer baan ahay buuri marka maana sugayn buuri waxaan doonayaa marka inaan walaal uga faa'iideysano inuu salaamatu sadr laabta inaynu xaadno oo xallo markaynu laabta xalle aynu xaadno ay inagana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina barakeynaya ubadka ilaahay inoo barakeynaya oorida ilaahay inoo barakeyn risq inoo ballaadhinaya qaraabadu aynu xiriir fiican u sameynayna arrinka isaga waxaan doonayaa idhaahdo waan ama jin hala colaada ama yuu la colahaanine aynu saamaxno dadkan inoo jeelka inoogu xidhan aynu sii dayno markaasaa ilaahayna jeelka ciqaabtayna sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi